هاي عد إلى ما عدلين إذا شيء أيام وحن كدري مشنقر هدي أنقذ شيء في عدنا مجوجين هرت إذا ينسو فيري بس إنه حابب يهرتاج وحن أد أغنى وعودها wuxuu ahaa habeen iga duwan habeenada kaleeto habeenkaas waxaan bas kooga degtay meel aanan ahayn meeshii aan u baahnaa markii aan xoogoo yara tagna ayaan dareemay inaysan ahayn meeshii aan aniga rabay waxaana arkay baskii inuu aad iga sii fogaaday ayna adag tahay inaan ka gaaro ama xitaa haddii aan u qayliyuuna maqlo maadaama uu da'ayay roob cimiladu waxay ahayd mid aan la qiyaasi karin qabowgeyda waxaana jiray qabow aad u daran meeshana waan istaagsanaan waayey oo waxaan raadsaday hooy u dhow meelahaas si aan uga galo qabowgan aadka u daran ee jira waan soo baxay waxaana soo galay duurkii meeshu waxay ahayd meel duur ah qabowga jiran wuxuu waa mid aad u daran taleefankaygana waxa uu noqday mid demiraba cirka ayaan fiiriyey si aan isku dhaho roobka mid joogsan raba yahay balse roobku wuxuu waa mid aan joogsan rabin waan soo socday duurka ayaan toos u soo galay ilaa ugu dambeyntii aan arkay gambaleel ka yeeraya welinalka iftiimaayo waan yaro farxay si kalena oo u yaabay waa meesha gambaleel iskooleed ayaa ka yeeraya dhankii ayaan soo aaday oo waanba u soo cararay markii aan soo istaagin waxaan arkay in meeshani ay tahay iskuul balse iskuulku waxa uu muuqday mid qadiimi inuu yahay oo waxa uu ahaa mid jabsan ama aan dayactirnayn albaabka ayaan soo furay waana soo galay si aan u fiiriyo cida joogto yaa jooga ayaan dhahay cid ilama hadlin idaasheeda ayaan waxaan ka dareemay shanqar haddii aan gadasheeda fiiriyo cidna ma joogin horteeda ayaan soo fiiriyey bisna waxaaba ii hortaagan waxaan aad uga nacay wuxuu ugu dhahay haye maxaa rabtaa meeshan maxaa kasoo doontay iyo yaa tahay inta aanan u jawaabin ka hor ayaan ninka saas u fiiriyey bisna ninka waxa uu ahaaba mid aan indhaha loo qoori karin sida uu og yahay dartiis wuxuu lahaa ilka aad u tiro badan oonan u ekaynba bini aadam inuu yahay isaga markii aan hoos u fiiriyana waxaan arkay lugihiisu inay yihiin luga aad looga baqaayo erihiisuna ay yihiin kuwa shaqaynaya aad moodin uu ka socdo maxaad iga fiirinaysaa ayuu dhahay waxaan ku dhahay adeer meeshan waxaan u imaaday si aan qabowga uga galo intaan hadalka dhammayn ayuu igu yidhi aamus hana isku hadlin saacadda ayuu fiiriyey wuxuuna yidhi isagoo aad u caraysan dartaa ayaan oga daahay galaaskaygii aan geli lahaa waxaan ku dhahay galaas ah meeshan waaba duuge haa ayuu yidhi wuxuuna yidhi ardaydeeda wa kuwaasaa wayna ku maqlayaan mana ogola inay maqlaan qof kale codkiisa waa uu dhaqaaqay waxaanu dhaqaaqay dhankii uu sheegay marba haddii aad soo gaartay intaan waxaan rajeynayaa inaad ka heshay videoga fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad noo subscribe garayso channelka si aan u gaarno targetkeena oo ah 25,000 sidoo kalena videoga like saarto si uu dad badan u gaaro aad ayaad u mahadsan tahay galaaska isagoo weliba noola cadeynaya weliba la hadlaya ardaydiisa aniga waan la yaabay waxaan damcay inaan fiiriyo ardaydiisa waxaan arkaa isagoo sabuuradda wax ku qoraya keliya meesha waxaa yaalay kuraasti jaban iyo bombalayaal kalaro kala duwan leh oo kala duwan oo kala nooc ah wuxuuna ahaa mid wax u sharaxaya weliba qaabab kala duwan wax ugu sharaxaya sida bini aadam oo kaleeto aniga waan la yaabay ninkan dhaqamadiisa iyo qaabkiisa iyo wax uu dimacsan yahay waxaan isiri waa nin yara dhiman ee hore u soco aniga waxaa isleeyahay wax walba inay iska caadihiin ayaan dareemayaa mana malay wax dhiba inay jiraan horey ayaan iska socday waxaana arkay qol xafiis ah ilaa qolkii furay markii aan qolka saa u furay ayaan dareemay labo iyo ur aad u daran oo qolka ka soo baxaya markiiba mantag ayaan ka wareegay waxaana mantagay dhammaan wixii aan soo cunay subaxdaas waxaana meesha yaala waxyaaba aad u ur badan misna aadna moodo meyd inuu meesha dhex yaalaba waan naxay waxaana dareemay inaysan waxba caadi ahayn waxaana bilaabay inaan soo cararo oo aan dhanka albaabka ku soo cararo isna hal mar waxaa iga soo horbooday ninkii qoorta ayuuna i qabtay weliba isagoo la weji aad u cabsi badan wuxuuna igu yidhi soomaana ku dhihin orod iska baxa waxaa meesha ku dhigay adiga soomaali diidinina bacdeed daba waad ka shalayn doontaa waxaan ku dhahay maxaa kaa khaldan bal horta dhulka dhig hal mar ayuu dhulka igu tuuray sansan ayaan u dhacay ama weji ayaan dhulka u dhacay lugtiisa ayuuna kor u qaaday wuxuuna dimcayay inuu lugta madaxa iga saaro inta hoose igu dhufanin kahor ayuu wuxuu igu yidhi aad ayaan u necbahay carruurta edabta daran ee dhibka badan aad ayaan idin necbahay waxaana jeclahay carruurtaas camal inaan ciqaabo gacanta ayuuna iga istaagay weliba si xoog ah markii labaad isagoo igu istaagi raba ayaa meesha ka fakaday oo waan istaagay waxaana ku dhahay iga raali noqo waan kaa tegaya dib dambena kuuma soo laaban rabo wuxuuna igu yidhi maya hadda ma ahan waa daaday haddayato ayaa loo baahnaa ereygaas inaad tiraahdo ee hadda ma ahan qalad badan ayaad iga gashay lagamana yaabay inaan ku cafiyo midaasna mid lagu cafin kara maba ahan wuxuuna bilaabay inuu si qaab daran u qoslo wuxuuna bilaabay inuu soo boodo carar ayaan ismaagay misena lugta ayuubay qabtay wuu iskagay soo jeeday wuxuuna igu yidhi waa markaa igugu dambeysay
ha ka walwalin, waad dhimanaysaa, dunidana waad dhaafaysaa. Wuxuuna ahaa mid aad u qoslaayo. aniga waxaan dareemay inay tahay xaaladii ugu dambeysay ama intii ugu dambeysay aan noolaan lahaa. base nasiibkayga waxaa yeeray gambaleelkii amaba xiisadii ayaa dhammaatay amaba xilligii bareega ahayd. basena waxaaba moodaa ninkii inuusanba waxba samaynin, waxba dhicin. wuxuuna dhahay bareegaygii waqtigii waa u dhammaaday. wauna iska dhaqaaqay oo wuxuu iska aaday inuu xiisadiisa aado. aniga naxdin waa soo fakaday, waxaan u soo cararay dhankii iyo bannaanka. weliba qabowgii aadka u darna ayaan kasoo doorbiday inaan gurigaas ninkaas uu joogo inaan joogo. aad ayaan u daalnaa, aadna waan u naxsanaa. waan soo cararay, balse nasiibkayga waxaa meesha ku helay gaari soo maraayo. gaarigii ayaa i istaagay, wuxuuna igu yaree yarisow uma muuqatid inaad wanaagsan tahay, wax dhiba miyaa jiro? dhib nabad miyaw, nabad. hay ayuu dhahay. gaarigii ayaan la soo raacay, waxaana oga sheekayay intaan gaariga wada saarnayn wax walba oo jiray ama sheekadii igu dhacday aniga. waxa uu i siiyey kafee, wuxuuna keenay xaafadeeda. aabbahay ayaa ninkii lacag u taagay si uu ugu mahad celiyo. ninkii ayaa yidhi maya looma baahno inaad lacag siiso, mana u baahno wax lacaga. aniga ayaa hoos fiiriyey, waxaana ku dhahay ninkaas muxuu yahay? ninkaas meesha degan muxuu yahay? wuxuuna igu yidhi ninkaas waa nin ahaan jiray macallin, arday ayuuna macallin u ahaan jiray. ardaydiisii ayaana waxay ku dhex gubatay iskoolka dhexdiisa dab intuu kacay. sidii ayuu isku wacay amaba sidii ayuu ku waashay, oo hadda waxa uu ku waalan yahay waa inay ardaydiisi meesha joogaan oo uu u malay inay arday uu haysto isaga. boonbalayaashaas yararka ee aad aragtay ayuuna arday ka dhigtaa. dad badan ayaana jiraan oo meeshaas tagay oo waxaas arrimahaas igala hadlay isbuucyo ka hor. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir adigoo taabanaya subscribe si aan u gaarno hadafkeena oo ah 25,000 oo subscribe.